kulan wacan dhamaantiina daawadayaal ku soo dhawaada beejkeena arrimaha jacaylka waxaan uga hadli doonaa qiso jacayl oo aad xanuun badan waa sida tan warqadan adiga ayay kugu socotaa ama tuur ama qaado qiso jacayl oo xanuun badan mudan in lagu cimri qaato maantay waxaan idin sidnaa qiso xanuun badan oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed inta badan khiyaanada iyo dhibaatada waayaha ragga Soomaaliyeed waxay kaga baxsadaan dumarka oo ay ku reebaan xasuus xanuun badan waxay u dhacday sida tan qisadan waxay ku dhacday gabar Soomaaliyeed murugadu waa naxdin oo ka soo kabsan admiga waxay u dhacday sida tan wallahi markaan dhageysanayay iyo intaan aqrinayaba hindahayga ilinta kama joogsan waxaan ahaa hooyo haysato caruur waxaan ka shaqeynayay hay'ad ka mid ah hay'adaha kuwa hoostaga WFP-da waxaan ka dhaxsan jiray nolosha caruurteyda waxaan ku noolaa nolol macquul ah waxaan ka muuqday bulshada oo idil laakiin nasiib darro wax walba way isbedelaan wixii ku qoran 10 sano ayay ka weyn yihiin waxay ahayd galab khamiis ah shaqada waxaan ka soo rawaxay xilli dhaqso ah waxaan soo beegsaday hoygayga waxaan joogayba qadar daqiiqada ah ayaa waxa ii yimid musamil oo ahaa wiil walaalkay oo aan aad u jeclaa waxaan dhaxmartay sheekadan waxaan u sheegay inaan aadayno dhanka iyo bakaaraha si aan u ogaano goobta lagu barto baabuur wadooga maadaama anigaan aad u jeclaa in aan barto gaari wadooga balse walaalkay ayaa dood na dhaxmartay kadib waan isku afgarnay waan isdiyaarshay alla yaa joogi dhaho oo ii cishto maalinta alla yaa wax ii sheego laakiin ma dhicintaa waxaan sii waday socodkayga waxaan logayaba waxaa la gaaray goobtii u dhaweyd carweydka waxaan la soo kulmay mas'uuliyiinta meesha laakiin is-afgaran waa awadeed qarashka ayaa aad u badnaa markaan ka soo dhaqaaqnay ayaa ka codsaday inaan biyo meesha ka cabno waxaan sariftay EVC Plus wax lagu adeegto Muqdisho saadka kadib waxaan go'aansanay inaan baabuur ka raacno meesha la geen karin waxaan istaagnay wadada dhankeeda kale muddo kadib ayaan balanay muddo kadib ayaan helnay baabuur faaruq ah waan iska dhex fadhiisanay waxaan ku saarneen 3 gabdhood iyo 2 wiil iyo darwalka iyo krishbooyiga dhamaanteena waan wada sheekaysanay daqiiqada markaan taagneen ayaa irid waxaa soo istaagay wiil warqad gacanta ku wada wuxuuna u dhiibay krishbooyigii waxaa loo soo dhiibay darwalkii laakiin daqiiqadii kadib darwalkii ii soo dhiibay warqadii markii aan weydiiyay waxay tahay wuxuu igu jawaabay adeega ma cabsadee ninkiisa ayaa cabsado warqada adeeg ugu socotay ama tuur ama qaado ayuu igu jiray dhamaanteena waan wada qosolnay intii gaariga aan saarneen balse warqadii ayaan qabtay waan kala furay waxaan ku qornaa number telephone iyo magac fadlan isoo wac waan isfiirinay dhamaanteena intaan gaariga ku saarneen balse waxa ra'yi ka dhiibtay intii gaariga la saarneed gabar ka mid ah gabdhihii la fadhiyay ayaa igu tiri iska tuur waa ciyaal suuq ku dhibayay dhammaan way ku taageereen dadkii balse xitaa walaalkay allamaan iska tuuro waxaan galay fikir waxaan isweydiiyay qofkan dan ayuu ka leeyahay waayo adigaba waqti kuma dhumiyeen warqad bilaadan la'aan ah waxaan go'aansaday inaan qaado warqada anigoo fiirinaya bini'aadanimada waayo waxaan wax ku soo bartay cadaalad sinaan ee xashar la'aan midnimo dhaxdhaxaadnimo waxaan u shaqeynayay hay'adda bini'aadanimo saas daraadeed waan dhowray bini'aadanimada anigoo fiirinaya in aadanaha la qiimeeyo daqiiqad kadib waxaan soo gaaray gurigii aan ku noolaa markaan dharka bedeshay oo aan nastay xisaabtii maantana gudbiyay ayaan soo qaatay warqadii waan wacay jalkii markii laga qabtay ayaan ku yiri ma adiga qofka ii soo dhiibay warqada markaas ayuu igu yiri ha abaayo waa aniga markaas ayuu igu yiri abaayo aniga ayaa hadhow ku soo wacaya bal isug balse anna waxaan ku yiri hayaa boowe daqiiqad kadib ayuu isoo wacay runtii waxaan ahaa qof dabeecad wanaagsan kaftan badan waan isalaanay isxaguraysi kadib wuxuu ii sheegay inuu iga helay oo daneynayo barashadeeda iyo xiriirkayga runtii kamaan diidin waxaan ku yiri hadhow armaad iga orodaa markaas kadib ayuu wuxuu igu yiri abaayo waxa doontaba haaw aniga ayaa kugu rabo iyo hadal alla yaa idhaho harumaysan hana dhageysan waxaan yiri waa yahay aboowe wuxuu i weydiiyay goobta waraaqadii ugu dhiibayay waxaan ka soo doonay markaan u sheegay ayuu igu yiri anaa ku barayo waxaan ku wada xiriiri jirnay qadka runtii waxaan ahaa qof soo guursaday haddana ma aqoonin jacayl waayo gurigii hore waalidkayga ayaa lahaa waxaan kulannay subax jimco ah 4 subaxnimo waxaan ku ballanay dabaqa wiib ee suuq bacaad anigoo taagan
ayaa gaari ii soo istaagay. Markaas ayaan ku iri, waaw, ma adiga? Inkastoo anigaan arag maalintii hore. Waxaan fuulay gaariga, waan isalaanay, waan iswaraysanay. hadal wuxuu igu bilaabay, waaw, qoftii aan rabay ayaa tahay, ballantana si wanaagsan ayaad u taqaanaa. annahu waa ikan waa diijeeda. magacaygu waa Cabdinaasir Cabdullaahi. Cabdinaasir ayaa markaas waxa uu ahaa wiil aad u qurux badan, waliba si aad, laakiin runta ayaa waxay tahay quruxda wajiga maahan, waxaa dhaanta tan qalbiga. qurux iyo qiimo la iskuma helo. waxaan aadnay dhankayo laamiga liido kusoo baranayay baabuur wadowga. waxaan sheekaysanaba waan isfahanay. runtii wuxuu ii soo bandhigay jacayl, waan ka aqbalay. waan u sheegay noloshayda iyo xaaladda aan ku suganahay, wuuna igu aqbalay. laakiin nasiib darro, bini'aadamku lama aamini karo. waxaan dhex martay jacayl xaggayga dhab ka ah. runtii wuxuuna ka noqday mid aad u ballaaran. waxaan baray familkayga oo dhan, dhammaan walaalahay, hooyaday, waalidka aan la noolaa, asxaabtayda oo dhan, saaxiibaday. nasiib xumo, laakiin qof ka mid ah familkiisa maan baran, mana ka shakin. muddo yar kadib waxaan ka wada hadalnay guur. waan isku afgarannay inaan ismihirsanno si qarsoodi ah. 7 bil kadib aan guri tagno ayuu igu yiri, anna waan ka aqbalay. naf wax jacayl ma nagaato, waayo hadalkiisa hadal ma dul saari karin. muddo kadib waxaa soo galay safar dhanka Yurub ah. waxaan meel dhiganay axdi iyo ballan. waan ku taageeray, waxaan awoodo kama hagran. waxaa dhacday in aabahay oo ku maqnaa dhanka iyo qurbaha ii soo dhibay taleefan qaali ah oo markaas ku fadhiyay qiimo ahaan $1. wallaahi waxa igu qabsaday ehelkayga qaar ka mid ah, laakiin waxaan iri waxaan siinayaa taleefankan qofaan aad u jecelahay. waana siiyey. waxaa iga xumaaday qaar ka mid ah walaalahayga, eedadayda ugu horeyso. arrintii ayaa aabahay la gaarsiiyey arrinkan, laakiin dhagjalaq uma siinin. wuxuu aaday dhanka iyo Turki. safarkiisna wuu ku guulaystay, wuxuuna galay dalka Norway. aniga waxaan ka soo tagay dalkii dhammaan reerahaygii. waxaan soo baaray dhanka iyo Suudaan. waxaan rabay tahriib in aan galo si aan dhaqso u kulanno, laakiin ima suurtagelin, waayo waxaa igu dhagay ehelkaygii oo dhammaan oo aad ii jeclaa. anigana waxaan waayay xiriirkiisa. waxaan dib u weydiiyey sababtuu ii soo waci waayey, oo hal mar kaliya oo ii soo wacay. wuxuu ii sheegay inuu ku jiro xero qaxooti, uusan awoodin in uu isoo waco. waxaan ruuxaantii ku dadaali jiray inuusan i tabin. waxaan mar walba xiriirin jiray walaalkiisa oo aan markaas bartay, Cadnaan oo ahaa wiilkii marqaatiga noo ahaa. waxaan ka dareemay isbeddel badan oo aan la yaabay. anigoo isku qancinayo danbaa hayso, ha ku tiirsan, ayuu maalmaha ka mid ah wuxuu ii sheegay inuu qaatay sharci. wallaahi aad baan u farxay. waxaan qaybiyey macmacaan oo dhan. alla ilaahayow, nin aan wax ogeyn ha cadaabin. waxaan wacay habeen oo aan talka la iga qaban. waxaan u diray emailkiisa qoraalkan, naftu qaali weeyaan, qof inay jeclaatana qaadirka uume kaa doortay qeyrka, qiimee jacaylko taleefankayga qabo ayaan ku yidhi. laakiin maxaan kala kulmay qaylo iyo aflagaado. waxaan idhi qosolka ilkaha iyo hadalkaba qalbiga jirin. anoo qalbi ku jeclaata igu qaali noqotee qorshahaaga ii sheeg ayaan ku yidhi. balse wuxuu ii sheegay in runta ii hayo. wuxuu iga codsaday inaan kala fogaan. wallaahi ma dareemi karin xaaladayda, waayo qof aad sugaysay waa silac. waxaan weydiiyey jacaylkeenna aaway, ballanteenni aaway, guurkii noo dhexeeyey aaway. laakiin wuxuu ii sheegay jacayl inaan iska ilaawno, ballantan aan ka cafiyo, guurkana oo walba meesha ma uusan oolin. ileen wuxuu igu yidhi waxaan ku fasaxay maalinkii aan ka soo tegayay dalka. waxaan is idhi xaqna ha ka gelin, waqtina ha ka dhumin. waan kuu sheegi waayey abaayo, markaan arko wanaagaadiyo jacaylkus waan kaa cabsanayay abaayo, iga raalli noqo. 6 bil ka hor ayaan ku furay. xitaa caawaad guursan kartaa, waayo aniga adiga isma arki karno, aadna ima imaan kartid. sidaa awadeed ayaan kuu fasaxay. runtii hadalladiisa waan dhagaysan waayey. markaas ayaan waxaan ku idhi, sidaa oo wejigaagu dhalaalayo, hadduu qalbigaaga nadiif u ahaan lahaa way kuu dhacan lahayd. aniga way igu dhacday, laakiin gabar dambe sidaa ha u gelin, oo sidaa ha u gelin, oo sidaa ha u gelin ayaan ku idhi. qof noloshiisa lama baabi'iyee ayaan jawaab oo dhigay, anigan aan raalli ka ahay. dhab ahaantii aniga maan ahayn qof markaa u haysto awood inaan kula hadlo jacaylkaygii, balse waxaan idhi samaanta dhexdeena iyo sidigii naftayda igu noqday sun iyo dacar. sambabada beerka iyo wadnahayga saaqday. halis baan ku sugannahay, sir iyo qiyaamiyo kaama sugayn xumaan. warkaaga sixirkan iyo silacaan muxuu yahay? sirmaqaba ilaah baa u sahmiye wanaago, siina kuma xumaadee hal san iyo dheeraad. naf dartaa u soontay, iga samir ma qabatee. safar weeye noloshiya armaydin ku sababtay. runtii aad baan u ilimeeyey
erayo kala duwan ayaan ku yiri waxaan intaas ku soo afmeeraynaa qisadii ciwaankeeda ahayd warqadda adiga ayay kugu socotaa ama tuur ama qaado qiso jacayl oo aad u xanuun badan waxaad daawadayaal nagala socoteen beejkeena arrimaha jacaylka